rasuulku wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qof waalidkiisa wax u gudi karaa ma jiro. waxaa la dhihi jiray hooyada ama waalidkaa haddii aad dhabarka ku qaado oo 7 mar aad xajka lug ku geyso oo aad soo tawaafiso xataa ma gudin waxyaabaha iyo xaqa ay kugu leeyihiin. hal maalin ama hal habeen oo hooyada qorax ay kaa qarisay ma u suura geli karto oo ma u dhigmayso. hal habeen oo hurdo ay ka soo naxdaysan u dhigmayn. war iska ilaaliya qaasatan hooyada. hooyo iyo aabba waa kala xaq badan yihiin. hooyaa xaq badan. nin ayaa rasuulka u yimid wuxuu dhahay rasuulkii allah man axaqu nnaasa bixusni suxbati, qof aan la saaxiiba oo aan wanaag u sameeya u xaqnimo badan dadka. rasuulku wuxuu yidhi ummuka hooyada. intaa ka gadaal wuxuu dhahay tuma man, yaa ku xiga rasuulkii allah. nebigu wuxuu yidhi ummuka hooyada. mar saddexaad ayuu ku celiyey ninkii. rasuulku wuxuu dhahay ummuka hooyada. intaa ka gadaal mar afaraadkii ayaa la yidhi abuuka ow ama abaaka, aabbaha ayaa ku xiga. hooyo 3 mar ayay ka xaq badan tahay aabbaha, waayo hooyo dhibaato fara badan ayay soo martay. hooyada in aad iyo aad loo ixtiraamo oo loo wanaajiyo ayaa qiimo iyo wanaag badan. hooyada rasuulku wuxuu tilmaamay aljannatu taxta aqdaami lummahaat, hooyooyinka lugahooda hoosteeda inay tahay. hadday kaaga kacan waad gelaysaa, haddaynan kaaga kicinna geli maysid. inkaarta ay habaarsamaan ha layska ilaaliyo, ducada ay ducaynayaanna ha laga faa'iidaysto khaasatan hooyada. nin Jureej la yidhaahdo aad u cibaado badnaa ayaa maalin tukanayaa la yidhi. hooyadiis ayaa u timid. nin cibaado badan ayuu ahaa. markaasay tiri yaa Jureejow. lama hadlin oo qalbiga ayuu iska yidhi yaa rabbi ummii wa salaati, ilaahayow hooyaday maan ajiibaa mase salaadeydaan wataa ayuu qalbiga iska yidhi. salaadiisa ayuu iska qaabilay. yaa Jureej say udhehaysa way iska baxday. maalintii labaad ayay hooyo timid asagoo salaadiisa tukanayo xaaladiisa ku taagan. ilaa nin cibaado badan ayuu ahaa. Jureejow say udhehaysay ayuu is yidhi yaa rabbi ummii wa salaati, ilaahayow salaadayda mase hooyaan ajiiba. fa aqbala calaa salaati, salaadiisuu iska watow iska qaabilay. way iska baxday. maalintii saddexaad ayay timid. ilan waa nin cibaado badan oon sheeko badnayn, oon xumaan badnayn, oon qayilayn, oon sigaar cabayn, oon gabdhaha raacayn, oo xumaan iyo waxyaaba xaaraan iyo qabiil ku dagaalan aan ku dhex jirine salaad ayuu u taagnaa. markaasay tiri yaa Jureej say udhehaysay ayuu qaabili waayey. hooyo waxay tiri mataqaanaa ilaahayow canugayga ha dilin ilaa aad ka tusisa gabdhaha dhilooyinka wejigooda calaa wujuuhi lmuumisaat, gabdhaha xumaanta ka shaqaysta wejigooda ilaa aad ka tusisa ilaahayow ha dilin. gabar aad loo miidaasho oo qurux badan oo reer bani Israa'iil ah oo la cajaa'ib badan quruxdeeda ayaa tiri Jureej haddaad la yaabteen cibaadadiisa anaa soo fidnaynaye ii dhaafa. intay isqurxisay ay iscarsisay Jureej aaday. dhinac walba ayay ka tagtaa waana ka leexdaa, waa ka jeestaa. meeshuu u jeestay ka aadaa. markay ogaatay inaysan waxba ka qaadi karin canugaan xaaladiisa ay adag tahay ayaa waxay isku dhiibtay, isu makanisay wiil qawsaar ah oo Jureej meesha uu seexanayo soo seexan jiray oo ari jira ah. ninkii ayay isku dhigtay. kiibaa ku dhaco jimaaco uur u qaaday. markay dhashayna dadkii hore waxay ahaan jireen marka ay qof laga zinaysto waxaa la tumi jiray ninkii markaa ka zinaystay. wiil markay dhashay u yimideen waaftii uu ku jiray ku dumiyeen, waa garaaceen, waa tumeen, dib ayay gaarsiiyeen. wuxuu dhahay sha'nuku maxay xaaladiinu tahay? waxay dhaheen waxaad ka zinaysatay gabadhii macruufka ahayd